maadaama aad sidaad sheegtay aad stoorkii laasheen baarlamaankiina aad kala dirteen doorashadii ka horeysana aad dhaliilayseen oo lahayd sida u dhacday ma wanaagsanayn idinka la tahantiina waqtigaa talada la wareegayseen ma idiin muuqatay waxay doontaba hal ahaatee haddana dadku inay xor u hayaan iyagu ciday doonayaan inay doortaan laakiin idinku aad taa ka qaadeen marka ma idiin muuqatay nooma muuqan maxaa yeele hadday noo muuqato dee maba samayneenba afgambiga waxaa noo muuqatay annagu dee xoog baan ku wala wareegnay meeshii laakiin dee in nidaamyadii markaa jiray dadka soo dhici jireen maanay ahayn mataqaanaa waxa la yidhaha qofku xorriyadiisa qofku uu kusoo dooranayay magac ahaan way ahayd waxa weeye waxyaabahan la yidhaha waad ogsan tahay adduunka waad la socotaa waxaan hadda ay yidhaahdeen dimuqraasiyada waxay ku timaad tartan xalaal ah oo caddaan ah oo la yaqaan oo qofku wuxuu sheegaya iyo meeshuu ka yimid iyo xataa meeshii uu kambeynka uu gelayay ama tartanka dacaayadda uu samaynaya lacagta meeshuu ka keenay marka waxa weeye adduunka ama waa in wixii sidii dadkii samaystay oo reer galbeedka u samaysteen loogu dhaqmaa ama de waa inaan laga been sheegin marka annagu been ma aanaan sheegin waanan u bareerinay inaan dadka usoo dhicino ayaan annaga kollay ujeedadeenu ay ahayd laakiin dee iyada mataqaanaa awooddii iyo dhaqaalihii dawladda ayaa lagu geli jiray anagoo nin ahaan waxaan xoogga dalka soomaaliyeed wakiil ugu ahaa xafiiskii hogaaminta doorashadii 69 say wax u dhacayeen iyo ciidamadana la weydiinaya meesha loo diraya iyo cabashooyinka soo dhacayo intoo idil badan ahrinayo goobjoogna aanu ahaa taa waxaa dheer de dadka nasadooda way calo jireen maansooyinkooda laga garanaya heesahooda laga garanaya gabayadooda laga garanaya waxa taas gabagabadii wada caddaynayo markii annagu aan adee caddaynay in ciidamadu la wareegeen meesha ummadda soomaali meel kasoo joogtay hambalya noo soo wada tirtay waa soo dambaxeen waxay naga hor yimid oo maxaad u samayseen layidhaha baga mooye maanaan arag sidii haddaba loo soo dhoweeyey afgambigii ciidamada wuxuu ahaa mid xoog leh sida heesaha gabayada iyo shucuurta dadweynuhuba ay muujisay hase yeeshee dowladihii ka horreeyay ee rayidkahaa raggii iyagu hogaaminayay sidee ayay u arkeen soo dhoweyntaasi ciidamada dadweynuhu ay soo dhoweeyaan cabdirasaaq xaaji xuseen oo ra-iisul wasaare ka ahaan jiray jamhuuriyadda soomaalida ayaanu arrintaasi wax ka weydiinay bal sida u arko soo dhoweynta xoogga leh ee la siiyey ciidamada wakhtigaasi waxaanu yidhi usoo dhoweeyeen muxuu ahaa mid horta meel kasta oo inqilaab ka dhaco waxaad arkaysaa wixii cusubbaa dadku sacbinayeen waxaana kuwaxa waxaa weeye waxa cusubbaa intii awal wixii horoo jiray aan wax ku haysanin oo iyagu ay yihiin aqlabiyadii waxay rajaynayaan nidaamka cusubbaa yaa wixii hore wax ka fiican idiin keenaya oo iyagu weeye riyadaas iyagu isu sheegayeen marka soomaaliya kuwaas oo kale ayaa ka mid ahayd muxuu ahaa markii military qabsaday oo khudba la aqriyay oo la yidhi xukunkii hore oo idin laqay oo tuugada ahaa wax walbaba dhameeyey annagaa ka fiican wax ka horreeya oo military hadda ka hor leeya waraa walbaanu idin ogeyna ma jirinin wixii horoo kale ay ballan qaadeen kanaanu samaynayna kaasaan samaynayna cadaalaan keenayna sidii aan awal cadaala jirinin barwaaqaanu meel walbaba ka dhigaynaa iyo cagaar dadweynihii way u sacbinahayeen marka layaab ma lahayn maxaa jira meel kastoo kale asia iyo africa iyo middle east iyo meel alla meesha inqilaab ka dhacay oo dhan haddaad la socotay saasaa ka dhacaysay marka derisnaatin muxuu ahaa oo la filan waayo dadweynuhu inay u sacbiyaan wixii isbedelay ma ay jirinin sidii uu haddaba sheegay cismaan maxamed jeelle markii ciidamadu ay la wareegeen taladii dalka waxay u yeedheen rag tiradoodu ay ahayd ilaa kontomeeye oo ahaa mutacalimiintii markaasi la tuhmayey ama jagooyinka sare ka hayay xagga maamulka raggaasi waxaa ka mid ahaa axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo wakhtigaasi ahaa agaasimaha guud ee wasaaraddii qorshaynta markii kacaanku uu qabsadayna waxa uu noqday wasiirkii ugu horreeyey qorshaynta ee dalka soomaaliya haddaba aadan nuux ayaa siilaanyo oo iminka jooga magaalada london waxa uu weydiiyey u yeedhiddii ciidamada qabsaday talada dalku ay u yeedheen isaga iyo raggii kaleba runtii waxa weeye markii ay ciidamadu meesha qabsadeen waxaa marka hore waxay isla galeen xeradii la odhan jiray afisyoona oo ka mid a xerooyinka ciidamada iyana may kala socnayn markaa way isku waday dhex jireen ciidamada military saraakiil badan oo ka mida iyo kuwa booliiska intuba way ku jireen annagu markaa ciidamada qabsaday mooyaane maan ogeyn exactly cid qabsatay dadka qabsaday kuwa ay yihiin isla markaa waxaa lasoo horshay dad badan oo rayid ah oo mutacalimiin iyo waxgarad loo arkayey siyaasadana aan toos ugu jirin oo la isugu keen qolka shirarka taliska booliiska
raggaa intaa ay qolada ciidamadu shirarka aan kala go-a lahayn ay u fadhiyeen oo marka dambe aan ogaanayno inay iskala hufayeen oo weli aan raggii noqonayay xubnaha golaha sare kacaanka markii dambe la bixi doona aan weli ayn iska xulina ay intaa ka badnaayeen annagana raggaa aan sheegayan ka midka ahaa layidhi ka soo baltaliya siday idinla tahay in dalka loo maamulo waxaan ka xusuusanahay talooyinkaygii ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa in raggan ciidamada qabsaday wax kastaba ha ahaadeene ayan maamulka dawladda iyagu ayan qaban oo askarahaan ayan qaban ee ay ku ekaada markii la ogaaday inay kusii soconayaan taageeridii Mengistu in bishii Juun 1977 loo diray madaxweyne ku-xigeenkii Soomaaliya ahaana wasiirka gaashaandhigga Maxamed Cali Samantar halkaasoo uu kula kulmay Moscow xogayihii guud ee xisbiga shuuciga Brezhnev marshaalkii xukumayay ciidamada gaashaandhigga marshal Ustinov iyo madaxdii xukuumadda dalkaas dambaal adag oo uu ka siday dawladda Soomaaliya oo nuxurkeedu kaan soo sheegay yahay oo ah xulfi inaad la noqotaan haddaad tihiin Sovietiga ma qaadan karo ayuu gaarsiiyey iyaguna waxay caddeeyeen inay danaynayaan heshiiskii iyagii Soomaaliya ka dhaxeeyey ha yeeshee ay rabaan in xaaladda si kale lagu dhammeeyo arrintu halkaa markay marayso gobonnimo doonkiina uu dhul qabsaday doora ha yeeshee magaalooyinka waaweyn maahane baadiyihii oo dhan ay qabsadeen bishii luulyo 1977 horraanteedii ayaa golihii dhexe ee xisbiga hantiwadaagga kacaanka Soomaaliyeed ee dalkan ka talinayay wuxuu yeeshay shir hameenkii qabsoomay ilaa subaxdiina socday shirkaas ayaana lagu go'aamiyey in ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay toos u galaan dagaalka iyagoo gacan siinaya jabhadaha hubaysan oo la dagaalamayay xukunkii Mengistu waata Cabdiqaasim waxaad ka warantaa maadaama haddaba golihii uu goostay in dagaalka si toosa loo galo ma jirtay cid iyadu talahaan soo jeedisay oo tidhi dagaalkii inaan galaama si kale aan uga wareegno golaha dhexe dhammaantii way isku raacay in dagaalka la galo markii hal qof laga reebo waxaa diidanaa oo ra'yigiisa caddaystay inuu diidan yahay guddoomiyihii hoggaanka ideolojiyada xisbiga cabdiraxmaan caydiid oo keliyaha diiday waxaad ka warantaa Cabdiqaasim allah u naxariistay cabdiraxmaan caydiid markii isagu meesha ka dooday waxyaabaha uu cuskanayay in dagaalkaasi aan la gelin maxaad ka xasuusan tahay cabdiraxmaan wuxuu ahaa ragga aad xaggan mabda'a hanti wadaagga ugu dheer wuxuu xeelinayey kollayba aragtidiisa wuxuu xeelinayay xiriirkii lala lahaa beesha hanti wadaagga iyo Soviet Union wuxuu arkayay ama uu sahminayay kala tagga beesha hanti wadaagga iyo Soomaaliya ay kala tagaan inay dhibaato u keenayso meelahaas ayay ku socotay ra'yigiisu haddaan xusuusto waxaad ka warantaa Soomaalidu waxay ku maamulada Cabdiqaasim oo haddaanad buur ahayn buur ku tiirsano maadaama markaasi Ruushkii u cadaysateen oo Ethiopia oo idin lahaa la dagaalamana dawladdii ay go'aan gaadheen la dagaalamo ma hayseen markaa ama ma lagaga wada hadlay golayaashii arrintaasi lagu gorfaynayay ciidda kale ee ay Soomaaliya ku tiirsan karto markaa ama wax ballan qaad ma ka haysatay run ahaantii waa jirtay haba tabar yaraato diblomaasiyaddu waxaa jiray dalalka carabta ah oo aanu ka midka nahay waxaa taageero xoog leh ayaa laga haystay oo ama qadiyadda loo diray ayaa ka haysatay ama dawladda Soomaaliyeed ka haysatay dalal kalena waa ay jireen ma faramarayn Soomaalidu ha yeeshee sida marka dambe soo bixi doonta marna meesha lama dhigan garab la-eg ciidan u dagaalama Mengistu iyo rajiimkiisii in Warsaw ay keenayso gurmad aan la arag inta badan taariikhda wixii dagaalkii labaad ka dambeeyey si dhifa mooye oo xilka iyo baddaba ah oo taangiyo diyaarado manaasiic tawaariikh leh intaba oo waqti kooban ugu keenay in la keenayo iyo ciidan socda oo
20 ilaa 25 ilaa 30 gaaraya oo isugu jiray Kuubaan, Soviet, East Germany, Yemen, حتى خبر ليبيا iyo Israa'iil intaas oo isbahaysiya ayaa ka hor imaanaysa dadwadatan xisaabta laguma darin sababtoo ah markaan ma ayan muuqan kaasi waxaa cabdilqaasim salaad xasan inkastoo haddaba aanay soomaalida u muuqanin sida shaxda u dhici karto haddii dagaal dhex maro Itoobiya iyo Soomaaliya waa marka koobaad ee dalkii midowga Soviet la oran jiray waxa uu cadeeyay Soomaalida inuu doonayo saaxiibtinimo wanaagsan in labada wadanba uu la yeesho sida ay noo sheegeen saraakiil goobjoog ahayd booqashadii ku tagay Maxamed Cali Samatar dalka midowga Soviet 1977 waqtiyadii ruushku uu bilaabay in xiriir wanaagsan uu la yeesho dalka Itoobiya isagoo saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed ugu waramayay markii uu soo laabtay rugtii saraakiisha ee magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in midowga Soviet ay sheegeen in ay doonayaan xiriir wanaagsan oo dhex mara Itoobiya oo ay arkaan markaasi kaasi inuu yahay mid aan waxba u dhimaynin ama waxyeello gaarsiinaynin saaxiibtinimada iyo iskaashiga u dhaxeeyay Soomaaliya iyo midowga Soviet sida saraakiishaasi goobjoog ahayd ay noo sheegeen ruushku waxa berigaasi John Samatar uu sheegay sida uu ku waramay maalintaasi in Soomaalidu ay kala garato marka midowga Soviet Itoobiya uu siinayo dabaabad iyo marka cagaf uu siinayo waxyaabaha kale ee dalkii midowga Soviet loo oran jiray uu u ballan qaaday dhinaca Soomaalida waqtigaasi John Samatar uu ku tagay booqashada dalkii midowga Soviet loo oran jiray waxa ka mid ahayd in isagu uu la wareego miisaaniyadda xoogga dalka Soomaaliyeed in isagu uu siiyo shidaalkooda una dhiso warshad samaysa taayirada baabuurta iyo mid kale iyaduna samaysa baatariyada uu ka sameeyo magaalada Muqdisho waxa kale waqtigaasi ruushku ugu ballan qaaday si Soomaalida uga joojiyo dagaalkaasi inay galaan in dhowr kun oo guri ciidamada uga dhiso degmooyinka Kismaayo iyo Sheekh iyo isbitaal guud oo isla markaasna loo isticmaali karo dhinaca nasashada oo ka dhiso magaalada Ceergaabo arrinta labaadna waxa ay tahay haddii mowqifkii ruushku uu sida ahaa oo ka soo horjeeday dagaal Itoobiya iyo Soomaaliya dhex mara dhinacii kale ee Soomaalida u carari lahaayeen oo ahayd Mareykanka mowqifkoodu muxuu ahaa madaxweynihii Mareykanka ee waqtigaasi Jimmy Carter oo ka hadlayay wixii Soomaalidu ay weydiisatay iyo sida uu ka yeelay waxa uu yidhi I thought that Somalia should not be permitted to succeed in trying to take Ethiopian territory, and I refused to give the Somali government any weapons. waxa uu yidhi Carter waxa ila noqotay in Soomaaliya aan looga ogolaanin in ay ku guulaysato doonisteeda ah in ay qabsato dhul Itoobiya ay leedahay waxaan markaasi diiday in dawladda Soomaalida aan siiyo waxba waxaa dab halkii ka sii socday labadii dhinacba inay u diyaar garoobaan dagaal bishii Juun 26 sanadkii 1977 ayaa 70,000 oo qof oo beeralay ah oo ay tababareen saraakiil Ruush iyo Kuubaan isugu jira ay dhoolatus ku sameeyeen magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya July dhamaadkeedina jabhadii loo oran jiray WSLF ayaa sheegatay in ay qabsatay goday xilligaasi Itoobiya waxa ay ku eedeysay in Soomaalidu weerar buuxo xadgudub ah ay ku soo qaaday dalka Itoobiya 7 bishii September waxa Itoobiya xidhiidhkii xagga diblomaasiga ay u goosay Soomaaliya maalintii ku xigtay oo 8 bishaasna hadal wada jir ah oo ay soo saareen Itoobiya iyo Kenya oo iskaashi rasmi ah oo xagga difaaca uu ka dhaxeeyay waxa Soomaaliya wada jir ahaan ay ugu eedeeyeen in Itoobiya ay ku soo qaaday weerar xadgudub ah oo qaawan hadda markii Itoobiya xiriirka xagga diblomaasiga ay u gooysay Soomaaliya waxa Soomaalida danjiro uga ahaa magaalada Addis Ababa Cabdiraxmaan Axmed Cali oo Turku Maadheer Cabdiraxmaan waxa aan weydiiyay bal dhinaca Itoobiya arrimo xagga dagaalka sida ay ka hayeen iyo iyagu hawshoodu waxa ahayd amaba ay qabanayeen xilligaasi arrimo ay xumaadeen Cabdiraxmaan waxa uu ku jawaabay waxa dhacday marka Itoobiya waxa aragtay Soomaalidu sida u diyaar garoobayso iyo sida tahay waxay ku qanceen oo arkeen in Soomaaliya ay soo weerarayso waana lagu oran jiray muxuu ahaa kuwa madaxda iyo deerka marka xafladda isugu nimaadno dhowr jeer bay ku yidhaahdeen waan ognahay inaad soo weeraraysaan laakiin waktigii baanaan garanaynin marka aada iyo aadba waxay sameeyeen inay ciidamo xooga sameeyaan waxay qaadeen muxuu ahaa oo tababar u geliyeen 100,000 oo beeraleyda waxna xagga Eritrea u diray waxna xagga Soomaalida u direeyeen annagu hadaan joognay Itoobiya waa arkaynay wax kale oo la qaban karo inaan jirin waajibka ugu weynaa saaran uu ahaa inaanu warka militariga khusuusan ay ka Itoobiya ku saabsan siyaasadeeda aan xaggeena ka dhargino si ay ugu talagalaan oo qorshaha samaysanayaan
muxuu xagga matala ay ugu talagalaan waxaan odhan karaa etoobiya mukhaabaraadkoodu ama wardoonkoodu xagga soomaalida wuu fiicnaa soomaaliya si u diyaargaroobayso ciidankeeda taangeedaheeda hubkeeda waxeeda oo dhan waxaan odhan karaa waxa ugu weyn aanu ka helnay etoobiya ee gaadhsiinay muxuu ahaa muqdisho waxay ahayd inaanu helnay bilaankii ama qorshihii maantoy war blank la odhan jiray haddii dagaal dhaco etoobiya ciidamadiisa u dagaalamaya meela ka dagaalamayan qorshahooda waa maxay kaasaa ugu weyna aanu helnay oo markaa iyadoo dhowr bood ay ka hadhay muxuu ahaa aanay dagaalkan filan inaanu dhicin yaanu kaa gaadhsiinay kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan axmed cali oo ahaa danjirihii soomaaliya ka fadhiyay wakhtigii dagaalku uu labada wadan ee etoobiya iyo soomaaliya dhex maray magaalada addis ababa barnaamijkiina intaa ayaanu kusoo gabagabaynaynaa waa barnaamijkii 12aad ee barnaamijyadii taxana ahaa ayaanu kaga hadlaynay taariikhdii soomaaliya aan ku bilaabay kadib markii ay meel mari weyday taladii ruushka ahayd in arrinta xagga dhulka ee soomaaliya iyo etoobiya dhex taalla aan dagaal lagu dhammaynin ee si kale looga wareego oo ahayd in federation ay samaystaan xidhiirkii uu dhexeeyey midooda sovieti iyo soomaaliyana meel xun uu marayo ayaa dabayaaqadii bishii sebtembar sanadkii 1977 waxaa ruushku ay bilaabeen in si xooga dayuurado etoobiya ay ugu soo daadgureeyaan hub fara badan waqtiyadaasi waxaa ciidamadii soomaalida oo huwana magaca jabhadii loo odhan jiray WSLF ay qabsadeen magaalada Jigjiga waradii ciidamada Soomaalidu ay Ethiopia ku qaadeen waxay ahaayeen qaar si dhaxsale u socday oo guushu ay ahayd marka laga soo bilaabo goday mid aan hakanin waxa isla markaasi si xoogobay iskaashigii dhex marayay Soomaalida iyo qoomiyadihii kale ee Ethiopian-ka markaasi ka soo horjeedo ay kamid ahaayeen caruusaha iyo oromada degan Baali iyo Harar waxaana waqtigaasi la sameeyay jabhadii iyadana la oran jiray Somali Abo Liberation Front iyadoo isla markaasna waqtiyadaasi ay soo baxeen ereyadii ha Somali Warrior iyo Somali Abo tobankeedii 1977 ayaa kooxda la dagaalanka argagixisada ee dalkii la oran jiray Jarmalka galbeed ayaa waxa ay ku guuleysteen inay furtaan dayuurad ay lahayd shirkadda Lufthansa ee Jarmalka oo kooxdii la oran jiray Baader-Meinhof ay soo qafaalatay oo ay la tageen Muqdisho ugu dambeyntii markii ay meelo badan soo mareen Soomaalidu gacantii ay arintaasi ka siisay Jarmalka inay u meel marto ayaa waxa raja ay ku gashay inay u soo joogsan doonaan reer galbeedku danjirihii waqtigaasi Soomaaliya u fadhiyay Jarmalka ayaa waxa uu ahaa Yuusuf Aadan Bookax Yuusuf oo imika Jarmalka degan ayaa waxa aan weydiinay bal sida uu u bilaabmay xiriirkii arintaasi diyaaradda ay ka yeesheen Soomaaliya iyo Jarmalkii galbeed markii arinta dayuuradu ay dhacday sidaad ula socotaan ayaa sida aad u sheegtay raja gashay Soomaalida in wax lala qaban doono ama Jarmalku uu caawin doono inkastoo aynu markaa dagaal ku jirnay xaggii wax ka tarka muxuu ahaa ama hub ha ahaato ama wax kaloo hub u dhigma ha ahaatee way ka yara fogaadeen ma ay jaalaysan laakiin waxay waxyaabo kale oo muxuu ahaa xagga dhaqaalaha ah ayaad moodaa inay u leexdeen iyo raggii uun markaa muxuu ahaa soo dagaalamay oo dad badan la keenay halkan uu dagaalkii wax ku noqday oo ay daweeyeen dhinacaasay ka doorteen laakiin dhinacii hubka wax qarsoodiya mooyaane wax kaloo aan anugu ogahay oo ay doorteen oo jiray ma jirin maxay ahayn Yuusuf markaa inaantay waxa kale diyaarka waa in xagga dhaqaalaha marka la eego ee Jarmalku ay doonayeen Soomaalida siiyaan waxa ii yeeray markii hore wasiirka arrimaha dibadda ee Gansar baa ii yeeray isagaa warkaa ii sheegay oo yidhi dayuuradu caynkaasa dhibaatadaasa naga haysata dee waxaan jecelahay bal inay horta degto oo muxuu ahaa markii adigu dayuuradu ay degtay waxaa haddana ka daba tegay nin la yidhaaho Benfish oo Jarmala oo wasiir ah xafiiska madaxweynahana jooga oo troubleshooter bay yidhaahaan gaaladu ninkii uun kolkaa wixii dhibaato ee dhaca ninka u baadi doonee xalila ninkaas hadeena xamar loo diray intaa ka bacdigeed waxaa ii yeedhay prime ministerka dowladda Jarmalka aniga ii yeedhay wuxuu igu yeedhay inuu dadka Soomaaliyeed iyo baarlamaanka Soomaaliyeed madaxweynaha Soomaaliyeed baan u soo mahadnaqayaa dad badanna uu kaxaysan lahaa sidaan warka ku qabo khubaro ah ama dhaqaale xaggeeda ha ku ahaato ama si kaleba ha u ahaatee dad khubaro ah oo badan baa raaci lahaa marka arrintii markii aan gaarsiiyey wasaaradeydii waxaa la yidhi waxaa hore aanu u lahayn
safar aanu ku soo marayno Italy iyo France markaa taasaanu ku daraynaa bay yidhaaheen waxaan idhi ha ku darina laba arrimood oo isku mid ah ma aha aniga waxay ila tahay tan hore u lahaydeenna inaad gooni u wadaan booqashada muxuu ahaa odaygana inaad ka aqbashaan oo aad ku sugtaan ama marka hore ha ahaato ama marka dambe ha ahaatee deed waa laygu diido waxaa la yidhi waa iskaga mid baa laga dhigayaa waa la soo marayaa halkaasaa muxuu ahaa warkii ku dhammaaday ma uu tegin odaygii prime ministerka ahaa ee codsaday inuu tago Soomaaliya oo dadka Soomaaliya u soo maadno ma jireen marka jarmalka dhinacooda waxyaabo ay diyaariyeen oo ay doonayaan ama mashaariic ahaato ama dhaqaale kala ahaato oo ay doonayaan dalka ku caawiyaan waa jirtay waxyaabo badan baa jiray hatta waxaa jirtay in marka uu prime ministerka jarmalku Schmidt marka uu codsaday inuu Soomaaliya tago oo dadkii Soomaaliya muxuu ahaa dawladii iyo dadkiiba uu soo mahadnaqo waxaa jirtay in ay dad kale oo mashaariic masalan beeraha oo ay Soomaalidu muxuu ahaa caan ku ahayd in ay muxuu ahaa wax ka caawiyaan iyo wixii laga caawin lahaa Soomaalidu markaa sheegan lahayd aad bay diyaar u ahaayeen laakiin ayaan daro iyo muxuu ahaa lagama faa'iideysan sidii la doonayay in looga faa'iideysto loogama faa'iideysan waxaa laga faa'iideystay dadkii muxuu ahaa dad xoogaay oo soo dhaawacmay iyo muxuu ahaa oo markii dambena weliba dadaan dadkii dhaawacmay ahayn la keenay meesha la yidhaha lagu daweeyo deedna iyana ay soo celiyeen yuusuf waxaad ka warantaa maadaama jarmalkii ciidi markaasi waxba weydiisan weyday iyaguna heegana inay wax u qabtaan Soomaalida xilligaasi iyaga niyadooda ay ka noqotay jarmalka waqtigaas wallahi markay arkeen markii safarkii prime ministerku uu ansixi waayay oo ay ku tala jireen in dad badan oo muxuu ahaa khubaro ah ay meesha geeyaan markii ay dhaqaaqi weyday ee waxba laga qaban waayay waxaa galay niyad jabkaasina wuxuu joojiyey wixii uu muxuu ahaa dee kaalmo toos ah oo muxuu ahaa ay doonayeen inay wax ka qabtaan ayaa niyad jab weyni iyakii ku yimid deedna farxay ka qaadeen kaasi wuxuu ahaa danjirihii Soomaaliya ka fadhiyay wadankaasi Jarmalka Yuusuf Aadan Bowka bishii November sanadkii 1917 ayaa dawladii Soomaalidu go'aan ku gaadhay inay cadeystaan mowqifkooda ku saabsanaa dhinaca Ruushka iyo xulafadoodii dhinaca Ethiopia habeenkii go'aankaasi golahii dhexe xisbigu uu gaaray waxa raadiyowga magaalada Muqdisho ka sheegay wasiirkii warfaafinta ee waqtigaasi Cabdulqaasim Salaad Xasan isagii ayaa nimanka idinku wareejin doonaa oo inoo sheegi doona sidii go'aankaasi lagu gaaray iyo qodobadiisi waxa ay ahaayeen markii la ogaaday ciidamada Kuubaanka iyo isbahaysiga Soviyeetku hogaaminayo iyo hubka xaddaafka ah oo ugu soo qulqulinayo waxaa dhacday in golihii dhexe ee xisbiga hanti wadaagga kacaanka Soomaaliyeed uu soo saaray go'aamo ku saabsanaa arrintaas golaha dhexe wuxuu ka dooday tillaabooyinka la gudboon Soomaaliya inay ka qaado dawladaha gurmadkaas isu soo kaashaday oo midowga Soviyeeti hormuudka u ahaa qaar ka mid ah xubnaha goluhu waxay soo jeediyeen in xiriirka diblomaasiga ah loo gooyo dawladaha ay ka mid yihiin midowga Soviyeetiga Kuuba Jarmalka bari iyo Yemenka koonfureynta qolo kalena waxay qabtay inaan tillaabooyinkaas isku mar la wada qaadin oo aan laga wada qaadin dawladahaas oo dhan balse horta lagu kaaftoomo in dawladda Kuuba xiriirka loo gooyo midowga Soviyeetigana khubaradiisa military iyo tan rayidkaaba laga saaro dalka waxaa kale oo la istusaaleeyay in Soviyeetigu ku xadgudbay heshiiskii kala dhaxeeyay Soomaaliya oo 1974 ay labada dal wada galeen markii uu Soviyeetigu hubka iyo ciidankaba ku taageeray maamulkii Mengistu Haile Mariam oo daafteer dabadeed ayaa golaha dhexe xisbigu soo saaray go'aanka qodobadiisu yihiin kuwan soo socda koow laga bilaabo taariikhda go'aankan waxaa buray lana joojiyey ku dhaqanka qodobadiisa heshiiskii saaxiibtinimada iyo iskaashiga oo dhex maray Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliyeed iyo dawladda midowga Soviyeeti sanadkii 1974 labo laga bilaabo taariikhda go'aankan
waxaa la joojiyey dhammaan wixii tashiilaad ahaa oo badda cirka iyo dhulkaba lahaa oo soomaaliya u fidin jirtay ciidamada qalabka sida ee midowda soobiyetiga. 3 khubarada ciidamada iyo tan rayidka ah oo dalka midowda soobiyeti ka joogta Soomaaliya waxay kaga baxayaan dalka muddo 7 maalmood ku siman. 4 dawladda jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya waxay warsatay tan midowda soobiyeti inay yarayso diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha safaaraddeeda iyo laamaheeda ka jooga Soomaaliya lana gaarsiiyo tiradooda mid u dhiganta tan kuwa Soomaalida ah ee jooga Soobiyeedka. 5 golaha dhexe markuu arkay faragelinta dawladda Kuuba oo u soo dirtay gobolka Geeska Afrika in ka badan 15,000 oo ciidamadeeda ah oo lagu taageerayo xukunka Ethiopia, wuxuu go'aamiyey in loo jaro dalka Kuuba xiriirkii diblomaasiga ahaa oo ay la lahayd jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya. 6 goluhu wuxuu amray inay dalka uga baxaan muddo 48 saacadood dhammaan diblomaasiyiinta, shaqaalaha iyo khubarada Kuuba. go'aanku saasuu ahaa, qodobadaasuu ka koobnaa xoogiisu. kaasi waxa uu ahaa cabdulqaasim salaad xasan. inkastoo haddaba Soomaaliya ay saartay ilaa iyo 6,000 oo khubaro ruush ah, waxaa jirta in dalka Suudaan uu isku dayo inuu kala taliyo Soomaaliya inaanay ruushka saarin ka hor intii aan go'aanka la gaadhin, isagoo u cuskanayay dhibaatada taas u yeelatay iyaga markii talabadaasi oo kale ay qaadeen. talabadaasi waxaa dawladdii Suudaan ee Numeru madaxda ka ay gaarsiisay wakiilkii militariga Soomaalida u fadhiyey Suudaan ee markaa joogay magaalada Khartoum oo ahaa Xuseen Saalax Muuse. isagii ayaa inoo sheegi doona sida warkaasi uu ku soo gaadhay iyo wixii uu ku dhaqaaqay. anigu bixitaanka ruushka waxaan ku ogaaday anoo Suudaan jooga oo askari ka ah ayaa maalin maalmaha ka mid ah ay tahay markaa 25kii bay ahayd bisha September. markaa anigu habeenka cashaan ku maqnaay ra'iisul safaaradda Maaris meeshii Ammaan intaan guriga ka maqnaa ayaa waxa ii soo wadeertay guriga uu yimi wasiirka gaashaandhigga ee Suudaan markaa waliina jeer Maxamed Ali Bashiir Lieutenant General Maxamed Ali Bashiir. markaa guriga ka soo laabtay 9kii oo waxala meelahaas ayaa xaasku ii sheegtay waxay ugu tiri wasiirkii Suudaanta Maxamed Ali Bashiir ayaa intaad maqlid guriga yimi wuxuuna ku yidhi haddii bixi lahayd iga bixin waa ku soo noqonayaa. wasiirka adigu 15 daqiiqo kadib ayuu soo laabtay keligii soo baaburkiisa Mercedes wata waanu salaam markaa uu yidhi kan waa ku rabaa magaalada Khartoum baan wareegnay runtii. markaas wuxuu arrin maanta meeshii degdega ayaan ku doonayay arrintaasana doonayay maanta meeshii dawladdiina inay gudbisay. markaas arrintu waa maxay warka wuxuu yidhi fiidkii hore waxaan ka soo kacay yidhi shir uu lahaa golaha difaaca ee Suudaan shir uu lahaa ayaan ka qayb galay buu yidhi. shirkana wuxuu gudoominayay buu yidhi madaxweynaha Maxamed Jacfar Numeyri. markaa waxaanu isku raacnay fariin aanu helay inaanu Soomaaliya u gudbino sida darteedna maarta meeshii military tajeba tahay aan arrintaadi ku sheego. arrintu waa maxay baan markaa wuxuu igu yidhi madaxa askariga ee jooga maarta meeshii Mareykan waxaanu ka helay buu yidhi war sheegaya in Soomaaliya ay damacsan tahay ruushka inay saarto. warkaasna markaanu sii daba galay madaxa askariga Masrigana waanu ka helay. ninka Masriga marka madaxa askariga Mareykanka waxa loo jiray Cabdulxaliim Abu Ghazala markii dambe wuxuu noqday wasiirka gaashaandhigga ee Masar. warkaas wuxuu sheegayaa buu yidhi Soomaaliya inay doonayso ruushka inay saarto. markaa taasaan idinka digaynaa arrintaasaan idinka digno ayaan kugu yimi buu yidhi. waxaana kuu sheegayaa buu yidhi 2 dal waanu ka midnahay aniga Suudaan iyo Masar ayaa ilaa hadda ruush saaray buu yidhi. Masar waxa ka waxay ilaa 17,000 oo ruusha annaguna 3,000 baa naga baxay. laakiin labadeediiba maanta waxaan khasaare ahayn kama hayno. marka waxaan ku leeyahay inaynu ku idin digno aan lahayd khasaare ku dhacay Masar ama Suudaan ku dhacay Soomaaliya ku dhicin. waxaan markaa ku leeyahay buu yidhi in dawladdu ogeysiiso Soomaaliya inay haddii ay saaraysaa ruushka waa inay qoraal cad ka haystaan Mareykanka iyo shuruud ay Mareykanka la galaan. haddii aanay taahayn dagaalka ay ku jirtaan waa ku jabaysaane aynkaa samaynina. digniinta aynkaasa ayuu maarta meeshii wasiirku ii sheegay. waxaa sababta markaa nala joogo safiirka Maxamuud Xaaji Nuur gurigiisaan ugu tegey ilaa 10 iyo barkii arrintii baan u sheegay. maanu fadhiisanay markii baanu maarta intii wasiirku noo sheegay safaaraddii baanu furannay intii baanu qoraal ka dhignay. waxaanu markaa goosanay labadiiduba Alitaaliya maalinta waxay siyaasada berri dhoofaysa
ilaa inaan raaco oo warka aan dalkii geeyo sidii baanu yeelo maartay consulka talyaaniga ayaa gacan siiyay dawladda Itaaliya saasaarnimadii ku raacay waxaan ka degay xamar markaa kadib wasaaradda gaashaandhigaan tegey wasiirka gaashaandhiga maxamed cali samatar ayaan arrintii u geeyey wuxuu yidhi 3 maalmood sug jawaabaan ku soo celinaynaa waan sugay 3 maalmood kadib markaas uu yidhi iska noqo arrintii maartay meesha anaga dhamaystiraynay taa waxay xigtay bishii November dhammaadkeedii anoo Khartoum markaa ku soo laabtay oo la yidhi Soomaaliya ruushkii way saartay waxaan markaa gadaal ka ogaaday mar dambena inaan wax shuruud ah fariintii aanu geynay sida noo sheegtay in wax allaale wax laga qabtay aan jirin ay noqday halbaad lagu lisay Soomaaliya iyadu wax allaale wax shuruud cadaana oo heshiis Amerikaan la gelin inay maartay meeshii ruushkii dibadda u saartay taasuna khasaarihii la ogaayay ballaadna ayuu runtii keen markii dambe Soomaaliya haddaba saaxiib la'aan ayay ku soo dhacday waqtigaasi Mareykanka iyo Britain ba waxa ay mashquul ku ahaayeen wadahadaladii Rhodesia oo aad u jilicsanaa labadoodu waxay ku deeyeen inaanay faquuqin ururka midnimada Afrika fikradda qabeen waxay ahayd in khilaafka dhuleed ee dhex yaala Itoobiya iyo Soomaaliya loogu dhameeyo Afrikaan ahaan go'aanka Afrikana waxa uu ahaa kii la gaaray xilligii la sameeyay OAU-da oo ahaa inaan waxba laga bedelin sohdimaha Afrika sidii gumaysigu kaga tagay haddaba bishii February sanadkii 1978 ayaa rasmi ahaan Soomaaliya u gashay dagaalkii markii hore lagu sheegayay in ay ku jirto jabhadda WSLF kadib markii si xoog ah loo garaacay ciidamo Soomaalidu ay leedahay oo dhammaa ilaa 8,000 oo ka dagaalamay inta dhaxaysa Jigjiga iyo Harar ayaa taangiyo ay wadaan ciidamo Kuubaan oo diyaarada lagu qaaday oo la dhigay meel ka dambaysa ciidamada Soomaalida waxa kale oo iyagana la hawlgeliyay diyaarada miiga oo ay Kuubaan ku wadaan oo waliba lagu xoojiyay hub cusub oo casri ah oo Ruushku keenay warka qaarkood waxa ay sheegayaan in ninkii hore madaxda uga ahaa ergada xagga militariga ee Ruushka ka fadhiday dalka Soomaaliya oo la oran jiray isaga General Grigore Baslov oo isagu hogaaminayay dagaalka Soomaalida lagu soo qaaday madaxweynaha dalka Cuba Fidel Castro mar wax laga weydiiyay sida iyaga iyo midowga Sofiyeedku ay isaga kaashadeen dagaalkaasi Soomaalida lagu qaaday ee Ethiopia loogu hiliyay waxa uu yidhi It was the only operation we conducted in full agreement with the Soviets. No such cooperation took place. Fidel Castro waxa uu yidhi waxa uu hawlgalkaasi military ee aanu wada galay ahaa ka keliya ee annaga oo si buuxda isugu waafaqsan aanu wada galay dalkii midowga Sofiyeedka la oran jiray ma jirin wax iskaashi oo sidaas oo kala ah oo na dhex maray annaga iyo midowga Sofiyeedka oo ka dhacay xataa marka la eego wadamada la yiraahdo Latin America sarkaal Ruushka oo isaguna ka mid ahaa ka fadhiday magaalada ee dalkaasi Ethiopia dhinaca midowga Sofiyeedka oo ka warramaya dagaalkaasi sida uu dhacay waxa isna uu yidhi The Cuban troops in Ethiopia played a very important role. waxa uu yidhi ciidamada Kuubaanku door aad muhiim u ah ayaa dagaalka ay ka ciyaareen Etoobiyaanku kaligood may samayn kareen maamulka dagaal ee lagu burburiyay ciidamada Soomaalida muddo sidaas u kooban xataa gacanta aanu siinaynay haddii lagu daro markaasi annagu military ahaan waxaanu dhexdayada ka fikirnay in aanu qabsano Soomaaliya laakiin dawladda midowga Sofiyeedka sax ayay ku ahayd inaanay taano fasaxin waayo xiriirka aanu la lahayn dalalka sida Mareykanka iyo Britain iyo qaar kale ayaa sii xumaan lahaa haddaba dhegaystayaal inkasta oo Soomaaliya laga hiilay haddana xilladii dagaalku uu socday waxa soo baxayay warar sheegeen ciidamada Soomaalida la fahaantoodu ay sasuldaareen arrintaasi sida wax uga jiraan waxaan wax ka weydiinay General Glaal oo ka mid ahaa ragii dagaalka hogaaminayay generaalku waxa uu ku jawaabay su'aashaas waa su'aal important ah warina Soomaalidu kama sheekaysan dhibaato jirtay waxa weeye horta ninkii Maxamed Siyaad dhihi jiray wuxuu balaayo ku dhigay dadkii oo dagaalka u diray ma aaminay wuxuu weligii ka soo horjeeday in dhagaha Soomaaliyeed uu ku dhaco magac wax fiican keenay oo aan asaga magaciisa aan ahayn nin Soomaali hebel la yiraahdo guul keenay oo guulwada hebel lagu lamaaniyo la garab dhigo arrintaas uu ka dagaalamay Maxamed Siyaad aad iyo aad uga dagaalamay dadkii uu dirsaday ee uu rabay inuu guusha ku keeno oo himiladii Soomaaliyeed uu rabay runtii uuna rabay ayuu haddana ciladaas soo baxday
ama hebel iyo inta la maqmaqlo dad kaloo lagu garab dhigaahayba ay meesha soo baxaan marka wax walba uu fashil asagaa fashilinayay maxaa tusaale ahaan matala aad soo qaadi kartaa adigu matala intii hogaanka xagga dagaalka aad waday aad dagaal ku jirtay waxyaabihii dhibaatooyinka ahaa ee hawshaadii lagu curyaamay maxaa ka mid ahaa marka meel la aadayo ciidan baa loo soo jeeyaa la yidhaahdaa intaas oo ciidan intaas oo saas iyo saas iyo saas iyo saas ah meeshaas gelayaa la yidhaahdaa ciidankii wuu nus reebanaya markii la dhaqaaqo ayuu nus reebanaya dayuuradii wuu reebanaya wuxuu reebanayaa madaaficdii wuu reebanaya midda kale meesha ka dhacaysay markaad rasaas nooca dalbato ayaa nooc kale lagu keenaya markaad shidaal nooca dalbato ayaa nooc kale lagu keenaya aadan waxaan kuusii caddeeye markii anigii oo qoonkii iga korriyey markaan isku qabanay dagaalkii saan la yeelo aniga waa layga soo waday maalin aamin inagoo joogna ayaa meeshii aan ka imin lasoo jabsaday waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa hambalyo dadweynow cumar yare stereo and cosmetic hoohod maydin siiyaa hoobaantan lulatiyo himir mayla cunaysaan hawdka mayla xulasaan ha yeeshee sideedaba hadalhaan ma buushee hambalyadaydu waxay tahay haddaan kuu habayno aad naga helaysaan duubis heer saraysiyo heesihii wacnaayee sannadadii horeetiyo kuwa haatan joogee loo wada hanwen yahay haybadlow qur-aankiiyo tafsiirkii habboona qasiidooyin aan hadhin hiddaheen iyo dalkeenniyo gabay iyo heesaba halka aad ka helaysaan waa cumar yare stereo and cosmetic kana waa barnaamijkeennii taxanaha ee qarnigii tegay iyo taariikhda soomaalida waa hagaag dhegaystayaal kulanti wanaagsan kuna soo dhowaada qayb kale oo ka mid ah barnaamijyadii aanu ku eegaynay taariikhda soomaalida barnaamijkana waxa weeyaan kii 13aad waana qayb cusub intiinii dhegaysanaysay barnaamijkii kan ka horreeyey ee baxay axadii waxaad dhegaystayaal ku maqasheen codad ajnabiya oo ka hadlayey dagaalkii socday 1977 ilaa iyo 1978 ee dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya madaxdaasi waxaa ka mid ahaa hogaamiyaha dalka Cuba ee la yidhaahdo Fidel Castro iyo saraakiil isaguna ka tirsanaa dhinaca dalkii la oran jiray waagaasi midowga Soviyeeti haddaba markaa aynu u soo noqonno dagaalkii dhinaca Soomaalida sarkaalkii ugu sarreeyay ee dagaalka hogaaminaya waxa uu ahaa General Maxamed Cali Samatar ama sarreeye guud Maxamed Cali Samatar oo isagu ah ninka Soomaaliyeed ee darajo ciidan halka ugu sarreysa ka gaaray oo aan shaki ku jirin in badankiinu aad wada garanaysaan marka laga reebo intii garashadoodu ay indha dilaacsatay dhowr iyo 10 sannadood ee ugu dambeeyay haddaba waxaa noo suurta gashay inaanu waraysi la yeelno General Samatar oo haatan isagu ku nool waddanka Maraykanka oo aanu filanno in dad badan oo na dhagaysta ay aad u dhagaysanayaan oo ay ugu dhegtaagayaan waxa uu oran doono General Samatar sababtoo xogogaalnimadiisa iyo doorkii muuqday ee uu kaga jiray dawladdii Soomaalida ee xukunkeedii u dumay sanadku markuu 1990 waxyaabaha aanu wax ka weydiinay waxa ka mid ahaa dagaalkii 1977 ama se dadku sida u dhigaanba lagu soo gaabiyo dagaalkii 77 saaxiibkii Cabdilaahi Xaaji oo General Samatar waraysi dheer la soo yeeshay markii uu dagaalkaasi wax ka weydiiyay General Maxamed Cali Samatar waxa uu yidhi dhacda xusuus weyn ii leh waxaa weeye dagaalkii 77 oo annaga iyo Etoobiyana dhex maray dagaalkaas mid weyn buu ahaa taariikhda way xusaysaa kutub badan bay ku qoran yihiin dugsiyaa la iska baraa al'aana dowlado badan baa dugsiyadooda dagaalka ka dhiga dagaaladaas aynu annaga iyo Etoobiya galay na dhex maray dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal si fiicanna aynu u qorsheynay si fiicanna aan u maamulnay anigana shakhsi ahaan xusuus weyn ii leh oo taariikhdayda meel weyn ka gelayo guud ahaan Soomaaloo dhan taariikhdeeda dagaalkaas meel weyn ka gelayo maxaa yeelay
soomaali waxay ku muuqatay dadka qiimaha ay leedahay dadnimadeeda iyo kartideeda ayay ku muuqatay. maxaa u sababa? waxaa u sababa etoobiya markaa waxaa loo yaqiinay libaaxi afrika, libaaxi geeska afrika ayaa loo yaqiinay. cidina isma lahayn ciidanka etoobiya ciidan ishortaagi karo ayaa afrika ay leedahay, cidna kuma fikeraynin markaa. laakiin ciidankii libaaxii geeska afrika la baxay bisad baan ka soo saaray muddo bilooyin aanan badnayn gudaheed. haddaanan loo soo gurmanna, dibadda aan looga soo gurmanin oo dowlada waaweyn iyo ciidamo badan coalition ciidamo isbahaystay badan ayan u soo gurmanna, xaaladda intaa waa ka duwanaan lahayd. dagaalkaas waxba yaanan ku dheeraanin, hase yeeshee markaan xuso goobihii ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahayd jigjiga oo ciidan xoog leh etoobiyaanka markaa uu u joogay. ciidamadooda taankiga ayaa fadhin jiray. sideedana waxay leedahay jigjiga difaac adag oo dabiici ah, buuraaley weeye. markii difaacaas la abaabulo la qodo waay la yaqaanaa, sahal laguma mari karo. isma ayan lahayn etoobiyaanka karamardha ayay jiiri karaan soomaalida oo muddo gaaban ku jiiri karaan, isma ayan lahayn. dagaalkaa jigjiga aad buu runtii u adkaa, u qallafsanaa. haddaan xusuustayda dib ugu noqdo 14 casho ayuu nagu qaatay jigjiga inaan ka takhalusno. jigjiga waa dhaafnay, waa la wada ogyahay. harar markaan marayno ayaa ay noqotay inaan ka soo noqonno oo ciidamo kale iyo awood naga badan ay soo gashay meesha. lagama maarmaan ay noqotay marka inaan ka soo saarno ciidamadanadii oo aan ka soo baxno. markaan aragnay qowida meesha soo gashay, hubka soo galay, colalka soo galay, hadday tahay annaga iyo etoobiya keliya kama soo baxneen, mana ay suurowdeen in nalaga soo saaro. markii annana aan keligayn noqonay, oo markaa halkaas waxay ku tusaysaa yacni militarily waan ku adkaynay dagaalkii, laakiin politically baa annala aynu waynay allaayad ama rag nala safto, dowlado nala safto oo na soo barbar istaago oo nala galo. dagaalkii baan waynay, ayaana ay heleen. waxaa daba dhegaystayaal la isweydiin karaa oo dadkana dhegaysanaya isweydiin karaan waxaa dowladdii soomaaliyeed iyo ciidamadeediiba ay u waayeen taageero shisheeya oo muhiim wakhtigaasi ahayd, gaar ahaana in laga helo dowladihii waaweyn ee waxtarkooda isbeddel ku samayn lahaa dagaalkaasi. janaal maxamed cali samatar oo arrintaasi iyo khasaaraha dad ee labada dhinacba soo gaadhay ka hadlayay oo uga jawaabay cabdilaahi xaajinah waxa uu yidhi sababtu way iska caddahay. waxaa weeye annaga markaa waxaan u muuqanayn dad weerarayo dad kale dalkiisa. markaa cidina diyaar uma aha inay gacan ku siiso cid wax weerarayso. etoobiyana dad isdaafacayo oo lasoo weeraray ayay ahaayeen. markaa waa la daafacayo, waa gacan baa la siiyey. laba quwadoo waaweyn baa jiray. labadii quwadoo waaweynaa mid ayagay la safatay oo ruuskii iyagu la saftay. maxaa dhacay? ilaan idinku markii hore idinla socdayoo tababar idin siiyeyoo aad isku dhoweydeen. waxaa dhacday ruuska markii dagaalka uu muddo socday, ruuska wuxuu cilaaqaad xoog leh la yeeshay etoobiya. wuxuu degay etoobiya, wuu xisaabtamay ruuska. etoobiya iyo soomaaliya isbarbar dhigay, wuxuuna doortay etoobiya sababo badan aawadeed. mare etoobiya
dad ahaan way ka badan tahay soomaaliya dal ahaanna way ka weyn tahay soomaaliya marka xigaa waxaa weeye soomaali shuuciyad ma noqonayso waa geli kari weyde wuu ogaaday etoobiyase waa gashay shuuciyaddii waa qaadatay mingisto iyo raggiisii waxay yidhaaheen way caddaysteen shuuciyan inay yihiin dabadeedna waxay goosteen mabda'iyan halkaas inay u leexdaan ka dhigtaan saaxiibba runa soomaalidana saaxiib ku meel gaaruu ahaa in markaa ay ka tagaan ayaa la qumanaatay marka markii aad soo baxdeen xabar aad ku soo noqoteen ciidamadiinnii markaad eegto guud ahaan imisa ciidana ayaa idinkaga dhintay askarta idinkaga dhimatay qiyaastii maxaad ku sheegi karaysaa tirooyin kala duwan baa jira 30 kun baa la sheegaa 20 baa la sheegaa 15 kun baa la sheegaa maxaad ku qiyaasi karaysaa cabdullaahi wararkaas waa maqle meelaha laga tuurtuuray oo la sheego waxba kama jiraan intaas figure ama tira aad hadda sheegtay intaba ma jiraan dagaalkii 77kii annaga iyo Ethiopia na dhex maray ilaa iyo xataa markii lagu daro kii dambe oo 81kii 82kii oo galdogob iyo balanballe ka dhacayay intaa markii la isku daro wixii nooga dhintay ciidamadii nooga dhintay Ethiopia dagaaladeedii 5,500 nin weeyaan oo nin uusan dheereen intaasi waa inta rasmiga ah ee idinku aad isu sheegteen laakiin tiradu inta aad bay uga badan tahay baa la yidhaah waxba kama jiraan waxaa annaga waa noo tirsan yihiin dadkanaga beenna ka sheegi mayno ninkiisi dhintay ma qarinayo taariikh hadda lasoo dhaafay wey haddii markii dagaalka lagu jiray la qarqarin karay maanta ma joogto maanta inaan qariyaa wax faa'iido ku jira male 5,500 nin baa nooga dhintay maxaabiis annagiyo Ethiopia aan kala haynayna annaga waxay naga hayeen 270 nin markii weliba intooda badan ay qabteen intii galdogob iyo balanballe dagaaladooda ay socdeen dagaalkii 77kii 17 nin bay naga hayeen dhammaan ciidan ahaan idinna imsaad hayseen annaga waxaan haynay ilaa 6,000 ciidan gaaray statistiga qoran oo la yaqaan weeye oo waxaana dhex socotay waayihii dambe oo dhan red crosska ayaa annagana noo keenaysay ayagana u geynaysay dabadeedna waa annaga u gudbinay markii dambe maxaabiistoodii intooda badan waxay ahaayeen raggii militariga rigliga ahaa ama militarigii runta ahaa oo Ethiopian armiga ahaa in badan oo kale ama booliis ama dad military u yaal oo militariga dhex deganaa way jireen ama xaasaskoodii ama caruurtoodii ka mid ah oo lasoo qabtay xeryihii lagu soo qabtay laakiin inta badan military ahaayeen jenaraal samater haddii aad tiri ciidamadii soomaalida ee dagaalkii 77kii bilowgii 8 ka qayb galay waxaa nagaga dhintay 5,500 maxaad ku qiyaasi karaysaa ciidamada Ethiopia intii ka dhimatay oo dagaaladaasina ay aad u qaraayeen una xoog weynaayeen cabdullaahi runtii mala awaal mooyaane xisaab saxa wixii Ethiopia uga dhintay kuma siini karo mana jecli wax aanan hubin inaan maaragtay iska tuuro laakiin haddana wixii annaga aan aragnay ama tirinay waa kuu sheegi karaa laakiin runtii halkaas ma ah xaqiiqdii intaas weeye kuma dhihi karo
qoladii dhibaatada ay gaartay baa sheegi karta annaga marka qiyaastannada goobahaas wixii aynu tiro koobnay markaan kuu soo qaado waxaan aaminsannahay taqriiban 15 ilaa 17 kun inay uga dhinteen Etoobiyaanka ayaan aaminsannahay waxa idna haddaba la isweydiin karaa dhagaystayaal ciidamadii Ethiopia oo General Samatar uu ku tilmaamay in markii hore loo arki jiray libaaxa Afrika laakiin sida uu sheegay Samatar ay ku soo celiyeen heer bisadeed inta ilaa ayay markaasi ahaayeen ciidamada Soomaaliya ay lahayd markii ay dagaalka galeen General Maxamed Cali Samatar inta ay soo ka jawaabaya waxa uu yidhi intuusan dagaalka bilaaban kontonkum buu ahaa ciidanka markaan dagaalka gelayni 100,000 intuu dagaalka socday baa qoray dabadeed dagaalka markuu laga soo baxay ciidamadii in badan waan sii daayay waxaase ilaa markii dambe qaranka uu burburay ku dhawaadkiisa waxaa aniga kulliba aan uga tagay wasaaradda gaashaandhigga 120,000 isagoo ah ciidanka markaad qiyaasto ee aad u fiirsato imika iyo intii aad dagaalka ku jirteenba habka dagaalka ee ciidamadii Ethiopia sidee baad u qiimayn karaysaa ciidamada Ethiopia laba nooc bay u qaybsanayeen ciidan qadiim ahaa oo muddo soo dhisnaa oo tababar dheer qaatay oo dagaalo badan soo galay oo regular army iyo ciidan waayihii dambe la qoray oo olol lagu qoray oo tababar gaaban la siiyey oo aanan tayadiisa saacan u fiicneen iyo awoodiisa dagaalba tiro badnaa laakiin aanan tayo lahayn wuu jiray ciidan horoo maaragtay tiradiisa iyo tayadiisa ay fiicneedna waa jiray marka aad eegto waxyaabihii idinku aad ku fiicnaydeen ee gacanta sare aad ku lahaydeen maxaa ka mida waxay nooga fiicneed ciidanka cirka xagga dagaalka cireed aad bay Ethiopia noogaga fiicneed annaga waxaan aad uga fiicnay xagga madaafiicda goobta khusuusan ciidamadannada madaafiicda goobta waxay ahaayeen kuwa aad tababarkooda uu u fiican yahay hogaamintooda dabeed ay aad u fiican tahay rag mintid oo yaqaan dagaalkanana ay hogaaminayaan waxaan u malaynaa weerarka annagaa uga fiicnay difaacay nooga fiicnaayeen Etoobiyaanka difaaca waa xagsadaan aad bay u xagsadaan adoo khasba mooyaane oo ay ku baaba'aan meeshaa mooyaane kama baxaan sahal ugama baxaan fulayna ma aha laakiin annaga min feerfeer marka laga bilaabo ilaa iyo harar intaa waa wadnay waa eryaynay waa daba joognay waana ka saaraynay goob walba markay ay galaan goobahaas aad bay difaacooda ugu dagaalamayeen iyagoo lagu biyo keenaa mooyaane sahal ugama ayan baxaynin sahal ugama yaacaynin hase yeeshee waa maquuninay runtii mana ayan filaynin dagaal noocaasa inaan ku qaadi karo waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka maantana intaa ayaanu ku joojinaynaa haddii ku soo dhawaada dhegaystayaal barnaamij kale oo ka mid ah barnaamijyadii xiriirkahaa ee ku saabsanaa taariikhda Soomaalida barnaamijkana waxa weeyaan kii 14aad
toddobaadkii hore waxaa dhegaystayaal aanu idin maqashina sidii soomaalidu ay taageerada uga weyday dowladihii awoodda lahaa xagga milatariga marka la eega reer galbeedka iyo reer bariga ahaa dagaalkii dhex maray etoobiya iyo soomaaliya sanadii ilaa 8 maadaama soomaalidu taageero haddaba ay ka weyday reer barigii iyo reer galbeedkii labadoodaba sababtuna ahayd iyadoo loo arkayay soomaaliya in dagaal gandarra ay ku qaaday dalka etoobiya waxaa markaasi la isweydiin karaa dhegaystayaal xaggee ayaa soomaaliya looga heliyey ama taageero ay ka heshay jenaraal maxamed cali samatar uu isagu markaasi hogaaminaya dagaalkaasi ee soomaaliya iyo etoobiya dhex maray dhinaca soomaalida markii arrintaasi aan wax ka weydiinay waxa uu ku jawaabay wallaahi adduunka carbeed siduu u dhan yahay ama hiil ama hoo baan ku haysanay mucaawino caskariya ama isbarbartaag siyaasadeed ayaan adduunka carbeed oo dhan ka haysanay waa tahay haddii laga reebo cadan iyo libiya oo markii dambe iyada labsadeeda dhankaas ku biirtay maxaa ugu badnaa marka taageeradeen siinay ma lacag bay ahayd ma hub bay ahayd yaa ugu xoog badnaa markaa deeqdaa la bixinayay dagaalka la siinayay dhinaca adduunka carabta markaad eegto waxaan oran karaa sacuudiga ugu roonaayo lacag buu bixinayay ha bixiyee annaga lacag caddaana inaan ka qaadano ma baahneene hub baan u baahneen marka hubka aan soo iibsanayno meelaha qaarkood hubkaas lacagtooda isagaa bixinaya sacuudigaa bixinaya matal dawladaha qaar caraba baan hub ka soo qaadanay hubkii lacag bay rabeen lacagtii sacuudigaa bixiyey yurubta kale waxbaan ka soo qaadanay ama aan dhaho suuq aanan markaa rasmi ahayn maxaa yeelay waxaana saarnaa embargo markii arrimaha noocaas oo kale ay jiraanna waa inaad xal heshaa layskama fadhin karee markii dagaal uu ku haysto waa inaad xal heshaa adduunkana suuqyo badan oo maaragtay bari iyo galbeedba leh oo hubka lagu kala iibsado oo dariiqa aanan caadi ahayn loogu kala iibsado ayaa badan marka sidaasaan ku soo iibsan jiray suuqa ugu xooga badnaa ee jenaraal samatar weligaa wax ka iibsan jireen xagee buu ahaa wallaahi noocyo badan bay lahaayeen bariga haba ha u badnaado bulgaariya iyo jekoslovakiya iyo haba u badnaadaan laakiin haddana xagga reer galbeedka lafsadiisa waa ka helaynay waxaa jira niman dulaaley ah adduunka buuxa weliba reer galbeedka dalalkan la yidhaaho dhexdhexaad weeye sida switzer oo kale iyo dad waxaa jira ku takhasusay arrimahaas oo maaragtay xiriiro badan leh oo hubka ka beec mushtaro oo yaqaano oo maaragtay sida loo galgalo meelaha iyo sida looga soo saaro intaba yaqaan marka ma sahlano arrintaas marka hub aad ku raadinayso dariiq aan sharci ahayn sida haddaba dhegaystayaal laga yaabo in qaarkiin aad ka warqabtaan dalkii midooda sovieti la odhan jiray muddo dheer ayuu soomaaliya ka taageerayay dhinacyo badan oo ciidamadu ay ka mid yihiin taasi oo ka horraysaba xilligii soomaaliya taladeeda ay la wareegeen ciidamadu intii ka dambaysayna kumanaan khubaraa ruush ah oo dhinac walba leh ayaa iyagu joogay waddanka soomaaliya waxaa markaasi la isweydiin karaa dagaalka soomaaliya ay ku qaaday etoobiya ruushkii marna ma tuhmay hiiga dagaal ee soomaaliya ku jiray jenaraal maxamed cali samatar oo weliba ka mid ahaa raggii golihii sare ee kacaanka ee laga tuhunsanaa inay aad isugu dhowaayeen midoogii sovieti markii aanu arrintaasi wax ka weydiinay waxa uu yidhi haddii maya aan ku dhaho been baan sheegaya maxaa yeelay nimanka aad baan maaragtay isugu xirxireen aad bay waxyaalaha annaga ula socon kareen dad maaragtay sophisticated ahoo aada mukhaabaraadkooda iyo informationkooda iyo waxoodaba aada u dhisan yihiinna waa yihiin marka ma ayan tuhmin kuma dhihi karo waa tuhmeen inkastoo annaga aan ku dadaalnay inaan ka qarino ma jirta marna inay idinkala hadleen matalan tusaalahaan waxaad ka soo qaadaa sida aan u maqlay matalan wafti adigu aad hogaaminaysay 1976 oo xisbiga iyo markaas saraakiil ciidamada ka koobnaa oo waddanka midooda Soviet tagay in
iyada lafaanteeda laydinla soo qaaday oo tuhunkoodii ay caddeeyeen dalkii midooda sovietiya la odhan jiray ma jirta berigaas taas maya ma jirin sheekooyinkaas wax jiraan maaha annaga waxa aan midooda sovieti ka helaynay ama ka qaadanayna wuxuu ahaa qorsho maaragtay sanawi ahoo la isla yaqaano la derso oo la isla ogolaado oo wax improvisation lagu samaynayo ma uusan ahayn waa tahay mayan ahayn waxaasa igu soo dhacay maanta berri waan kula ordayaa ma ahayn waxay ahayd مثل سند كدنب waxa la filayo sanad ka hor baa la sii qorsheynayay John Samatter inkastoo haddaba uu sheegay inay dhici karto midowga Sovieti in laga yaabo intuu uu ka galay hiigii dagaal ee Soomaaliya ku jiray hase yeeshee Soomaalida aanay u sheegin laakiin Umar Salaad cilmi oo kamid ahaan jiray golihii dhexe xisbiga anti-wadaaga kacanka Soomaaliyeed isla markaasna sida uu sheegay kamid ahaa dhowr nin oo iyagu diiday dagaalkaasi 1977 in lagu qaado dalka Ethiopia markii xisbigu kulan uu ka yeeshay waxa isagu uu qabaa in Ruushka Soomaaliya uu cadeeyay tuhunka uu ka qabay hiyigooda dagaal oo ah Ethiopia inay damacsan yihiin inay ku duulaan muddo boode sanad ka hor ahayd waqtiga dagaalkaasi oo dhacay waxaana hadaladiisii kamid ahaa 76 markii la dhisay xisbiga anti-wadaaga kacanka Soomaaliya dooran jiray oo dalka markii dambe maamulhayay ayaa wafdi waxa loo diray wafdi xisbi iyo military waxa loo diray Raashka Moscow loo diray wafdigaas waxa hogaaminayay oo dhanka ciidamadana ka socday wafdigana madaxu ahaa General Maxamed Cali Sabantar wasiirka difaaca iyo madaxweynaha laba korneyl baa la socotay xagga xisbigana waxaan ahayn 3 nin baan ahayn Axmed Maxamed Laxwas ilmihiisa jiray oo golaha sare ka tirsanaa Cabdiraxmaan Caydiid oran jiray arday sabab ku dhintay iyo aniga 3 ayaa xisbigana ka soconay marka waxa barnaamijku ahaa inaanu xisbiga dalka Ruushka maamulo iyo sida Ruushka loo maamulo anti-wadaaga ayaan soo barano dawladana aan xisbiga waxa la soo galno marka waxa nala qaabilay oo nala shiray golihii siyaasadda ee xisbiga dalka Ruushka xukumaha golihii siyaasadda oo 18 meelahaas ah dawladda Ruushka wixii madaxda u ahaa ugu sarreeyay qof ka maqnay wasiirka gaashaandhiga fadhiya waxa fadhiya wasaarooyinka dadka iyo bulshada meesha xukumay barnaamij dheer buu soo jeesay Cali Samantar wuxuu yiri waxaan u baahanahay taageero iyo hub iyo adigu arrimo xisbi waxaankaas doodii markay dheeraatay waxa la yiri waxaan tuusanay muddo dheer inaad Ethiopia weeraraysaan waa naga shaafiseen haddana waa idin tuusanna maanta waxaan aad dalbanaysaan oo hubka aad dalbanaysaan shakibina sii gali waana sanadkii weyn waxa weeye waa bishii Agoosto 76 markaas uu warqad dheer u soo bixiyay yiri warqadana madaxweyne Maxamed Siyaad baa soo dhiibay hadii ilaahay ku rooyahay wuxuu idin ka ballan qaadayaa inaan dagaal jirin waxba ka walwalinina ayuu leeyahay aniguna afkaan maanta idinka sii cadeynaya walwalka iska saar waxa la yiri hubkaana dagaal u doonamayna maxaa se hubka kan aad u rabtaan difaaca oo yaa iska difaacaysaan waxa weeye dalalkan reer galbeedka ah anti-wadaaga diidan baa nagu soo duulahaya yaan ka baqaynaa waxa la yiri annaga difaaca xagga idinka difaacayna oo badda iyo joogna meel walba iyo cirkaba dalalka dariskana waa ka xoog badan ciidamada ka xoog badan marka anagu dagaal inaad qaadaysaan baan u aragnaa tan kale hubka weydiisanaysa waxa ku jira gawaarida lagu xambaaray taangiyada gawaarida taangiyada lagu xambaarana waxa weeye dagaal ba hayaan loo galahayo oo meel dheer dagaal laga galahayo taangiyada xambaarana ilaa goobta dagaalka marka taasuna waa nooc cadeynaysa ala kulli xal dood dheer ka bacdi kuwaas taangiyada jida laga reebay wixii uu dalbaday hub iyo gaadiid waa la siiyay qalab kuwaas ma laga reebay codsigii kuwaas laga reebay laakiin shakigoodu waa ku jiray waa soo noqonay 77 July 13 bilood marka laga joogo 12 bishii July 77 ayaa golaha dhexe oo xisbiga waxa la keenay mooshin ama arintooda la keenay waxa la yiri
mawduucu waxa weeye laga doodayaa dagaal in la galo dalalkii maqnaa si loo xoran lahaa dalkii maqnaa oo dalkii Soomaali galbeed yaa maalinta ka soo jeediyay golaha dhantay madaxweynaha ka soo jeediyay Maxamed Siyaad dood kadis ay ahayd doodii 7 nin oo anigu aan ku jiro ayaa diiday oo tiri inaan weerarno ma ahan Ethiopia maantay haddii inta halka u gudbin umro 7 nin aad sheegtay adiga oo mid waxaan ka xasuustaa anigu waan ku jiray waxaan ninka le Cabdiraxmaan Caydiid oo sabab lagu dilay mar daba ku dhintay ninka la yiraahdo haddii Ilaahay ku rooyahay warsame jugufnin la oran jiray haddii Ilaahay ku rooyahay Cabdullaahi Warsame nin la oran jiray oo hadda jooga warsame nuur haddii muxuu inaan ka xasuusto war adigu inaasan ka xasuusan karaa haddii haddaba dhegaystayaal aynu ka gudubno waxtarkii iyo aragtidii shisheeyaha waxay doontaba ha ahaatee dagaalka Itoobiya iyo Soomaaliya dhex maray markii Soomaaliya lagu soo jabshay waxa Soomaaliya u soo hoyday dhibaatooyin xoog leh oo ay ka soo kaban weyday dhibaatooyinkaasi waxay bilaabmeen intii uu dagaalku socdayba askartii Soomaaliya qabsatay bishii Oktoobar sanadkii 1969 olayaashii ugu waaweynaa ee ay bilowgii qaadeen waxa ka mid ahayd qabyaaladii oo la yidhi waa la aasay hase ahaatee waxa si cad boodhka looga tumay oo looga jafay oo la adeegsaday xilligii dagaalku socday oo ay noqotay in ree hebel iyo ree hebel la raadiyo waa kan Generaal Samatar